Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed wuxuu dib ugu laabtay furmaha dagaalka. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa la sheegay inuu dib ugu laabtay furmaha dagaalka kadib guuldarrooyinkii soo gaaray ciidankiisa iyo guulihii dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay ka gaareen. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya inuu dib ugu laabto furmaha dagaalka waxa ay qayb ka tahay qorshihiisa dhanka militariga iyo sii wadida howlgalka dhanka militariga ee ciidamada dowladda Itoobiya. Warbaahinta Al Jazeera ayaa tabisay in Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu mar kale dib ugu laabtay furmaha dagaalka, waxaana ujeedadu ay tahay inuu hogaamiyo gulufka militari xilli ciidankiisa shalay ay qabteen wadada isku xirta magaalada Waldhiya iyo magaalada Maqalla oo muhiim u ahay jabhadda TPLF marka la eego wadadaasi magaalooyinka ay aadaysay iyo istaraatiijiyadda ay ku fadhiday. Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa hadda waxa ay go'doon ay geliyeen ciidamada Tigreega waxaana gebi ahaanba la jaray aagagii ugu yaraan looga soo gurman lahaa. Warbaahinta Al Jazeera ayaana baahinaysa Abiy Ahmed inuu dib ugu laabtay furmaha dagaalka. Waxaa tani ay ka dhigan tahay Abiy Ahmed inuu dib ugu laabanayo furmihiisa dagaalka si uu ula dagaalamo kooxaha ka horjeeda islamarkaana guulo kale oo la taaban karo uu gaaro. Wejigiisii koowaad ayuu horey u sheegay in la soo gabagabeeyo taasi oo suuro gelisay in ka badan 15 deegaan gacanta dowladda ay soo gasho. waxaana dib u soo laabashadiisa ay ku soo aadaysaa xilli shalay ee jabhadda TPLF sheegtay inay gacanta ku dhigeen magaalada Gasheena oo ah magaalo istaraatiiji ah oo ciidanka dowladda Itoobiya ay horey u qabsadeen. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ka hor inta uusan ku soo laaban wejiga labaad ee howlgalka ciidanka militariga ee Itoobiya waxa uu inta uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa telefoonka uu kula hadlay mas'uuliyiin kala duwan madaxda wadamada bariga qaaradda Afrika, mas'uuliyiinta midowga Yurub, mas'uuliyiinta midowga Afrika, xogayaha guud ee qaramada midoobay, Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Canada iyo mas'uuliyiin kale waxaana ay u ekeed ugu yaraan in uu dhanka diblomaasiyadda ama arrimaha dibadda uu taageero uga weydiisanayo howlgalka ciidankiisa militariga ay sameynayaan. waxyaabaha ka soo kordha wejiga labaad ee howlgalka Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya uu bilaabay iyo macluumaadyada dagaalada Itoobiya xogaheena dambe ayaan ku ogaan doonaa.